maanta waxa ay ku aastaysan tahay 63 sano ka hor markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 12 Abriil oo ah maalinta loo dabaaldego ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aasaaskooda waxay ahayd in dabaaldegyo waaweyn iyo fantasiyo la qabto balse ciidamadu waxa ay ku diyaarsan yihiin inay iska dhiciyaan kooxda khawaarijta al-shabaab oo dagaal adag ku qaadaan waxayna wadaan weerar aan kala joogsi lahayn oo shacabka Soomaaliyeed looga dul qaadayo kooxda khawaarijta al-shabaab halkan waa mid ka mid ah furmaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku sugan yihiin oo ah duleedka deegaanka budbud oo ah deegaan dalxiiska ku wacan balse khawaarijta al-shabaab ay 15 sano gacantooda ku haysteen kana reebeen asaagood waxa la joogaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Aadayabaal Abshir Biyow kana mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu kamid yahay ciidanka furinta hore ku sugan ee ka qayb galaya dagaalka Abshir saambaliya marka hore ku hambaleenaya hambaliyaan ku leeyahay aad iyo aadan kaaga mahad celinaya Cusmaan Aadan hawsha shaqada ka hayso hawlahan dalkan iyo deegaanadan oo ciidamadu ku sugan yihiin furunta aad iyo aadan kaaga mahad celinaya ciidamadan aad iyo aadan ugu mahad celinaya uguna hambalyeynaya xilli Rabadaan ah lagu jiraa oo waaya adaga saas awgeed waa nimankan argagixisada ah oo khawaarijta maantay oo Rabadaana inay Ilaahay idinkiis dhiigooda aabanaan in la dilo aabanaan Ilaahay idinkiis waana insha Allah lagu iidi doonaa cibaada u dhimanna ma jirtaba maanta in khawaarij la dilo iyadoo Rabadaana saas awgeed waxaan markaa u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed inay cadawga ay iska kacshaan kunay iideystaan dalka furuntiisa Ilaahay idinkiis waana u duceynaya ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay guuleysta ciidamada xoogga gaar ahaan iyo ciidamada macawisleyda gaar ahaan waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay uu guuleeyo sidii horeba ugu soo guuleysteen haddana ay ku sii dadaan. Assalaamu calaykum.